madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu laba jawra lagu doortay waqtigaagi waa dhamaaday hadda Soomaaliya oo dhan hadda ma xukuntid reer Muqdisho aad xukuntaa reer Muqdishona maanta madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo wasiir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ra'iisul wasaare Khayre xildhibaan maartay Cabdiqaadir Cusuble iyo dadka la midka ah oo ka soo horjeeda oo qaarkood gudoomiyaal gobol soo mareen dad badan oo aragtida siyaasadda ka soo horjeedo reer Muqdisho u badan dadkaas intaad xoogto xukunaad xoogtay Muqdisho kuma haysanaysa Soomaaliya markasta afartii sanaba mucaarad iyo muxaafid ayaa loo kala baxaa qolo ayaa banaanka taagan oo qaylinaysa aragtidaada yaa mucaarad sanad tusaale anu hadda waxaan ku jiray dadkii ka soo horjeedi jiray farmaajo haddana waxaan ka mid ahay dadka xasan ka soo horjeeda farmaajo maxaan ku dhalay mucaaradadeena Soomaaliya ku sugan gaar ahaan magaalada Muqdisho ma la dhihi karaa waxay mucaarad u yihiin in ay kursi uun ku gaaraan iyadoo loo tusaale qaadanayo tan xasan sheekh maxamuud marka madaxweynahan waxa uu wanaagsan oo tala Soomaalinimo oo tala walaalnimo ah waliba in wada hadalka socdaahi uu natiijo dhalo haddii wada hadalka laga quusto oo ay noqoto aniga magaaladii haysta ana dekadii haysta ana airportkii haysta ana cashuurtii bariga qaadanaya aduguna madaxweyne hore iyo wasiirro hore waxba qaadan ma kartaan waan magaalada ana leh aduguna ma lihidin arintaas waxa ka dhalan doonta maxaa lagu tilmaami karaa qof la sii og yahay oo ticket la sii siinayo oo la leeyahay hebel madaxweyne ka noqonaya doorasho ayaa lagu tilmaamay horta ninka xilku ka dhamaaday labada joor madaxweynaha noqdo federaalkan ku hormara madaxweynuhu arintan ku diray waxa waaye dalka maanta laba jooraad xukuntay sumcad darraba waxay ku naqato ha uga tagin civil war xamar diida qaar hadda galmudug ka tartamay madaxdooda waa la wacay odaga madaxweynaha waqtigiisu dhamaada la fariistay isa sharaxu dhah wiliga ma maqashay gudoomiye tartami rab oo xisbi oo la leeyahay anagu maxaafadaanahay mucaarad noqo ee ila tartan inta suuqa laga waco marka waxaani doorasho ma ahan kula wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka Himilo magacaygu waa Hanad Cali Guuleed ku soo dhawaada barnaamijka Daljir barnaamijkan toddobaadkiiba laba jeer ama hal jeer ayaad ka daawataan telefishinka Himilo ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho barnaamijka aalaba waxaan ku eegnaa xaaladda guud ee dalka gaar ahaan isjiidka xagga siyaasadda iyo wararka kale ee la xiriira toddobaadkan waxaa marti ugu ah barnaamijka Axmed Caraaye Cumar Culusow Axmed Sahal oo ah aqoon-yahan iyo waliba sharci yaqaan waxaan marka hore kugu soo dhaweynayaa Axmed Sahal telefishinka Himilo iyo barnaamijka Daljir hanad waa ku dhawa way marka xigta wada hadallo ayaa ka socda magaalada Muqdisho wada hadalladan heerar kala duwan ayay soo mareen wayna daba dheeraadeen maxaa is leedahay way u daba dheeraadeen wada hadalladan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد waxaan u mahad celinayaa marka hore TV-ga Himilo haddii aan su'aashaada ka jawaabo waxaan isleeyahay cagajiid ka yimid dowladda hadda waqtigeedu dhamaaday ama xilgaarsiinta ah ayaa sabab u ah wada hadalladu waxay soo bilowdeen waqti hore oo dheer sida ummadda Soomaaliyeed dadka siyaasadda daneeyaaba ay ula socdaan hase yeeshee miri dhalkeedu in natiijo laga gaaro wada hadalladaas waxaa lugta dambaysiinayay oo jiidmayay oo markastaahi oo gogol dhaba la isugu yimaado aysan wada hadal dhaba uusan ka baxayn xubnihii matalayay maaragtay xukuumadda hadda waqtigeedu dhamaaday oo dabcan uu oday xasan sheekh madaxweynihii hore dalka xasan sheekh uu gadaal ka maaragtay fadhiyo isaguna uu markaas uu maaragtay go'aanadiisa inta kula soo xiriiro uu ku celinayo marka waxaan isleeyahay natiijo weyn waxaa loo gaari waayey in qolada hadda muxaafidka iyagu ay dhankooda jiideen wada hadallada maxay ugu dan leeyihiin ayaa is leedahay qoladan inay halkan ay wax soo gaaraan oo iska soo daba jiito maadaama waqtigu u dhamaaday waa un dan aan ku dhisnayn umadnimo waa dan aan ku dhisnayn maaragtay badbaado qaran iyo umadnimo waa dana un maaragtay nimanka markaa xukunka joogaahi ay dantooda ku sii riixdaan inay maaragtay ku banaystaan waqti aan banaanayn sharciga ku banaanayn umadnimada iyo dowladnimada aan ku banaanayn marka waa sidaas waayahay madaxweynaha waqtigiisu ka dhamaaday Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa muddo dheer ayay ku doodaysay in dhinaca mucaaradka xataa aan laga hayn ama aysan isku raacsaneen nooc doorasho oo ay isla ogol yihiin maadaama dhinaca kale ay ku doodayaan doorasho qof iyo cod ah marka taas ma la is dhihi karaa way daba dheeraysay
ما يلسما dhihi karo marka hore horta waxa qeexid u baahan yaa mucaarada dawladda hadda jirta waqtigeedu dhamaaday yaa horta mucaarad ku ah anigu aragtida aan qabo waxa waaye mucaaradada hadda ay dawladda federaalku sheegto gebigood ma wada aha mucaarado waxaa ka mid ah rag ka baxay mucaaradka oo iyaga maaragtay la qariibay waan ka warhayno dhinaca dawladda iyo muxaafadka maraya ka mid ah ilaa haddana mucaarad ay dawladdii federaalka waqtigeedu dhamaaday ugu yeerayso marka mucaaradka dhabtaahi waa mucaaradka golaha mustaqbalka sidaan u arka aniga kuwaas waana kuwii doodaha sameeyey kuwaas waa kuwii kismaayo isugu tegey kuwaas waa kuwii bandhiga mucaaradeed ee macnaha leh ee ka duwan dadkii kale maalin dhow shirarka la soo geliyey ka duwan la taagan maaragtay inay mucaaradnimadooda ku matalaan marka ilaa ay hadda marka ma cadda golaha mustaqbalkuna waa Jubbaland iyo Puntland iyo golaha samata bixinta oo Banaadir area South Central matala iyagiina marka ma jirto wax cad oo hadda maaragtay maaragtay dhameystir ah aan dhihi karo oo dawladda federaalka ee waqtigeedu dhamaaday isugu soo dhawaadeen ma jiro marka mucaaradada dhabta marka waa kuwaas iyagaana inta xalka uu ka imaanayo oo xal waara oo doorashooyinka iyo waxyaabo badan oo la isku haya ah way jiri doonaan jiitakan wuu sii jiri doonaa sida aan qabo qaybaha dambe ayaan waxaan ku eegi doonaa cidda mucaaradka ah dhinaca kale markaad fiiriso garabkan ayaa jiro oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hogaaminaya isagana oo iyagan dhankooda ay soo bandhigeen doorashadii xilligii waqtigii uu Farmaajo uu xukunka u joogay hore u soo bandhigeen oo muuqaal eg tan bila Soomaaliya marka dawladdu mucaarad ay u aqoonsan tahay dhinacaydaas dhinacan kale oo doorashada kale iyagan mucaarad ay yihiin oo waa golihii mustaqbalka oo Puntland iyo Jubbaland ay ku jirto marka laba doorasho oo kala duwan soo waqtiga ma dheereen karto horta arinta madaxweynihii hore dalka Maxamed Cabdullaahi waa arin oo maaragtay mucaarad wuu yahay si guud maaragtay inta xoogaalnimadeedu la eg tahay hase yeeshee mucaaradadu ma ahan kaliya sheegasho kaliya ma ahan mucaaradadu waxay u baahan tahay inaad shaqayso inaad bixiso waqti inaad bulshada abaabusho inaad waxyaabaha ay dawladdu ku qaldan tahay inaad ka hadasho inaad bandhigyo samayso inaad kulamada waaweyn ee mucaaradada ah afkaaraha waaweyn lagu wadaagayo aad ka qayb gasho iyo wixii la mida marka madaxweynahaas oo madaxweynihii hore dalka mucaaradada si guud wuu ka tirsan yahay hase yeeshee laakiin isku kursi ma aha dhinaca kale laakiin ma shaqaynin isku kursi way yihiin oo hadda maaragtay saamiga xataa markii la Jubbaland Puntland golaha mustaqbalkii ku jiraan laakiin mucaaradadu ma ahan sheegasho ma ahan haddaan kelmadda ku soo koobo ee waxa waaye inaad ka shaqayso inaad mucaarad tahay adigoo ka shaqaynaya wax dalka iyo dadka ay dan ugu jirto marka aragtida aan qaba anigu waa ka waayahay isjiidka muddo dheer ayuu jiitami doonaa maadaama dhinaca bila Soomaaliya ay ku adkeysanayso ama madaxweynaha madaxweynkiisu u dhamaaday uu ku adkeysanayo in muddo 5 sano ah xukunka uu joogo oo 1 sano oo dheeraad ah ayaa meesha ku jirta haddii wada hadaladan socda ay fashilmaan maxaa xiga wada hadalada socda horta eebba waxaan ka baryaynaa inaysan fashilmin annagu waa inaan rajada wanaajino hase yeeshee waa ayaan daro haddii madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday hadda dhowr bilood galay waliba qalalaase lagu sigtay maaragtay chaos in Muqdisho maaragtay qalalaasay dhibaato ay ka dhacdo maalmo dhaweyd markii mucaaradku isku dayeen inay mudaharaad silmiya oo qodobka 18 19 iyo 20 dastuurkeenii la isku raacsanaa uu qabay ay maaragtay ka diideen iyadoo ciidamadii dawladda iyo hogaankii ciidamada iyo saraakiil fara badan loo adeegsaday in mudaharadaas silmiga la joojiyo hase yeeshee anigu ismalihi inuu dadka ku geyn doono ama mucaaradada maanta jirtaahi isaga xukunka ku haysata shalana uu ka tirsanaa oo maaragtay nimanka isaga ka tirsanaa jiray sida taariikhda aad ku ogtahay inuu maaragtay ku geeyo ilaa gacanta la isula tago oo civil war magaalada ay qalalaasa gasho dhibaato dhacdo baka magane marka kama rajayn doono laakiin intii inuu caqligu u soo dago oo talada loo sheegayo madaxweynaha hadda xilgaar waqtigiisu dhamaaday xukuumadda caqligu u soo dago waliba prime ministerka madaxweynaha maadaama lagu daalay prime ministerka inuu maaragtay mas'uuliyadu leeyahay maanta Soomaaliya waa wada fiirinee madaxweyne xasan sheekh kaliya dalka maanta madax kama ahan oo maaragtay waqtigiisu ha dhamaade hase yeeshee ra'iisul wasaaraha mas'uuliyadda saaran mas'uuliyad waxa saaran prime ministernimo mas'uuliyad ummadnimo in maanta labadii macallin Xamza Cabdi Barre iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay Soomaali ku kala tagto nimankaas oo bahda waxbarashada ka tirsanaa waa arrin ceeb ku ah Soomaalinimada iyo ummadnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee nidaamkii dimuqraasiga ahaa oo aan isku dooran jirnay marka waxaan qabaa in prime ministerku tala ka duwan ta madaxweyne xasan sheekh maadaama 9 gogol uu dhigay
ay gabagaba hadda tan ku dhowdahay in lagu fashilmo ilaahay kama dhigo inuu isgarto isagu marka uu yiraahdo bal anigana dowr halaysiiyo haddaan xalka qayb ka noqon karo marka waa kaas maxaa is leedahay doorka Xamse Cabdi Barre way u muuqan la'day la hadda wada hadaladan ku wajahan waa big question waa su'aasha maanta ra'iisul wasaaraha dul hoganaysa waaye xukuumadda maanta fulintoo dhan isaga u sareeya in maanta haddii madaxweynihii mucaaradkii saxda ahaa ay isfahmi waayeen kulamo badanna ay waxba ka soo bixi waayeen waa inuu kaalintiisa caddeeya waa inuu noqdaa nin Soomaaliya oo aan qofkii xil siiyo kaliya u shaqaynaynin ummaddiisa iyo dalkiisa iyo ummadnimadiisa iyo wadajirkeeda u shaqaynaya inuu noqdaa laga doonaya marka ra'yiga aan qaba anigu kaas waay goortii hore waxa uu soo baxay in wada hadalada labada dhinac dawladda guddiga ka socday iyo dhinaca xubnaha mucaaradka ka socday aad bay isku fahmi waayeen halka wax loo wado bila Soomaaliya oo ku adkeysanaysa doorashada qof iyo codka ah iyo xubnaha kale oo ku adkeysanaya in waqtiga la joogo doorashada bila Soomaaliya ay wadaysan dalka suurtagalka ahayn ayaa soo baxaysay inkastoo beesha caalamka dhexdantooda iyo wali ay sii socoto haddana haddii uu burbur ku yimaado oo sida lagu kala tago yay tahay inay qaado mas'uuliyadda wax dalka ka dhaca waa ka jawaabaa arrinta mas'uuliyadda laakiin waxaan ku hormaraa hor dadka inaan u sharaxno labada moodalka dawladdu waxay xasan iyo groupkoodu waxay sheegayaan madaxweynihii hore in lagu galo maaragtay qof iyo cod sidoo kale xisbiya lagu galo nidaamka xisbiyada in lagu galo oo shacabka horta waa inay ogaadaan Soomaaliya xisbi sax ma ka jira xisbiyo qaran xisbi qaran waa inuu xafiisyo leeyahay gobolada oo dhan waa inuu golo dhexe leeyahay waa inuu guddiyo leeyahay waa inuu budget dawladeed leeyahay waa in xisbiga xaakimka oo muxaafadka xisbiyada mucaaradka ee awoodoodu isu dhiganto waa inay xisbiyada mucaaradka ee budget ku leeyihiin dawladda federaalka ah oo maaragtay oo xuquuq ah say u shaqeeyaan ee bulshada siyaasad ahaan uga dhex shaqeystaan waxaas miya hadda Soomaaliya ka jira Soomaaliya waxa ka jira waa ururo kan GSB xataa hantidii dawladda la geliyaba xataa ku dar isagu xataa urur waay ma xisbi ma gaarsiisna marka Soomaaliya waxa ka jira waa urur shacabku horta waa inay sidaa u fahmaan midda labaad waxa waaye dawladda hadda waqtigeedu dhamaaday waxay ku doodaan oo dawladdu taa shacabkan gaarsiinaynaa awoodda sida hadda aad wada aragteenba koonfur galbeed doorashay ka qabteen doorashada koonfur galbeed awood shacabka la gaarsiiyey ma jirin doorasho mar kastaahi qofka GSB taageersantaha uu soo baxayo doorasho ma noqon kartaa sax ma ahan shacabku marka waa inay fahmaan oo ay ku baraarugaan oo waxa socda la fiiriyo waxaani ma yihiin one man one vote ki saxda ah adduunka ka jiray ma yihiin xurriyaddii doorashada ma jirtaa tartan dhaba ma jiraa oo maaragtay election ma jiraa guddi doorasho dhaba oo la ictimaadi karo oo lagu talageli karo ma jiraa waxaan ma yihiin wax saxda ah adduunka ka dhaca doorashooyinka waa la wada yaqaanaa adduunka marka ma ahan waxaan hal urur oo abaabulan oo helicopter raacaya oo lacag wata oo meeshuu tagaba carruurtii haweenka lacag siinaya kadibna aniga lay doorto dhahaya xildhibaanadana qoranaya waxaas waay annagu marka waxaan ka digayna waxa waaye dawladdii federaalkeed in legitimacygeedii uu dhumo ayaan diidanahay doorashada qaranku marka waa inay noqoto doorasho u qalanta ummadda Soomaaliyeed waxa la isku hayo dhabtaana waa taas waxa hadda ka dhacay koonfur galbeed hadda lagu wado galmudug oo hadda leeyahay campaign la sameeynayaa oo aad u jeedo lacagtii dawladda baabuurtii dawladda tiknikadii dawladda hantidii dawladda dad musharaxiin lagu sheegay oo GSB matala ay jidadka la taagan yihiin waxaas waay waxa aan maaragtay ka indhergarad ahaan anigu aan diidanahay ummadda Soomaaliyeed waa inay fahmaan quwo man one vote mucaaradku ma diidana xisbiya in la isku doorto ma diidana laakiin waxaas hadda brever ahaan maba diyaarsanaba gogosheediiba ma taalaba waxa hadda yaala waa urur magaca uu ka jira Soomaaliya iyo xisbi urur haysta dawladnimadii resource-gii dhaqaale ee raba inuu u ekaado xisbi laakiin aan xisbi ahayn marka waxaas ka jira wadanka waa in hor sidaa u fahmaan labada moodal marka isagu wuxuu leeyahay dad badan inaan ka qayb gelinaan rabnaa mucaaradku waa ogol yihiin dadka Soomaaliyeed inay wax doortaan waxa cadeyn kuugu filan moodalka mucaaradku keeneen haddaad akhriso waaba ka sugan yahay waana ka shafaafiyo iyo accountability fiican yahay ka dawladdu keenta sababtu waxa waaye golihii deegaanka xamar ka dhaca fiiri oo hadda ay xukuumadda waqtigeedu dhamaaday imaamush waa si musuq iyo wuxuu ku soo baxay iyo ku dhamaadeen iyo waxaan waxba ka jirin waxaana keenayay tusaale xisbiga GSB qolada oo ururka GSB aan fiirina bal dadkii soo baxay xataa iyagu aqyaar ma lahayn qofkii 3 kun oo qofood keenay ma soo bixi karin oo xisbiga ka tirsan qof maamulka xisbiga ka tirsan go'aan ka gaaray golaha dhexe gudoomiyashooda qof gurigiisa iska jooga hadii la doono la siinaa golaha deegaanka ee Muqdisho waa dhacday oo hadda arrintaas way dhacday marka doorashada qaranka
nidaamka hadda ay soo bandhigeen mucaaradku waxa waaye in degmada tusaale degmada Gurceel ama degmada Balcad ama degmada Garoowe ama degmada Cadale ama degmada Baydhabo ama degmada Kismaayo ama degmada maaragtay Garbaharey mucaaradku waxay rabaan in inta xildhibaan ay degmadaas ka soo jeeda in dadka degmada oo dhan wada doortaan maaha number ma aha macnaheedu hadday doono waxa laga yaabaa xildhibaan waxa dooran karta 20,000 oo qofood xildhibaanna 15,000 oo qofood waxaaba laga yaabaa tirada hadda qolada dawladda waqtigeedu dhamaaday ay raadinayaan dad ka badan inay xildhibaanada qaranka doortaan aan dhici karta nidaamka mucaaradka markii loo fiiriyo marka shacbiga warka loo sheegayo ee ku dhisan mucaaradku ma rabaan in dadka Soomaaliyeed la gaarsiiyo awoodda oo ay codkooda ay ku ciilbaxaan arrintaas waa been moodalka hal akhriyo sida bandhiga waxa ku qoran aan wada fiirino dadku ha baraarugeen waxa laga hadlayo dooduhu waxay ku salaysiin ha fahmeen intaasaan uga baxayaa su'aashaas insha Allah tii xigtay aan guda galno yaa qaaday mas'uuliyadda marka mas'uuliyadda waxa qaadaya markasta qofkii xilka jooga oo resourcigii wadanka haysta dhaqaale ahaan awoodii dalka haysta saraakiisha amri kara culaysyada jira isaga gacantiisa ku soo ururayaan dalkoo midaysanna loo dhiibay 2022 madaxweyne xasan waxaa loo dhiibay dalka isagoo midaysana soo maro dhibaatooyin dagaal ha galo badbaado qaran iyo aan uga badbaadinna madaxweynihii hore hase yeeshee hadda qofkay gacantiisa ku dambayso ayaa maaragtay hadday dhibaato guud ama aafo xaarato ah hadday timaado ilaahay kama dhige waxaa qaadaya qofka ugu dambeeya ee markaas xukunka jooga ayaa qaadaya dhinacyadu tanaasul ma muujin karaan xilligan waa isku soo jiijid tanaasul waaba jiraaba haddaan la wada hadlayn hadduuna tanaasul jirin miyaa la wada hadli lahaa waxaa cad kulamada mucaaradku inay bandhigooduna fiican yihiin xasan naftirkiisu uu ogol yahay inuu fadhiga soo galo hase yeeshee impeachmentii ama resultigii ama achievementii in la soo saaro ayuu hortaagan yahay marka wuxuu ku hortaagan yahay dadka negotiationka u soo diraayo waa maqar gadaal laga haayo waxba ma jari karaan waa midi gadaal laga haayo marka markii la doodo siday u hadlayaan iyo qaabkii hadalka u dhigayaan markaad fiiriso oo xataa shirarku markay soo dhamaadaan waa qiimeynaa kulama ay yeeshaan mucaaradka mararka qaar waa ka qayb galaa kulamada mucaaradka marka ma jirto waxyaabaha ay soo bandhigayaan maahan waxyaabo maaragtay qofka xataa kula fadhiyo isaga ka soo go'ay dood isaga ka soo go'day maahane waa dood maaragtay hagis ku socota waayo gadaal maaragtay laga hagayo maadaama xasan sheekh waqtigiisa uu dhamaaday maxaa diiday in mucaaradku si toos oo la fadhiisto oo meesha gorgortan uu ka galo maxaa ka hortaagan anigu waxaan isleeyahay wada hadal xumo horto anigu ka shaqsi ahaan kuma ogeyn madaxweynaha sadda 2 jeer la doortay wada hadallada waa geli kariyay sida taariikhdiisu ahayd hase yeeshee xalku waxa waaye waxay Soomaali wada goosato Soomaali qofna wuxuu rabaa inuu Soomaali isagoo dhacsan inuu taladeeda u gooyo ayuu rabaa dadkan reer Muqdisho oo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed u weyn yahana iyo labada maamul ee maaragtay legitimacy-ga haysta federaalka ah oo Puntland iyo Jubbaland ah waxay rabaan in wax Soomaali u dhantahay in maaragtay loo midoobo oo la isku raaco oo aan doorashadii Baydhabo ka dhacdo kale aan laga dhigin doorashadii federaalka doorasho legitimacy heli karta sharciyad heli karta lagu midoobi karo qofkii lagu doorto taageero uu ku heli karo ayaa maaragtay dooda dhabta ah taas waa isla doorashooyinka intaan ka gudbin oo Axmed Madoobe iyo Siciid Deni aan ka gudbin arrimahood maadaama golaashan ay ka mid yihiin dad badan ayaa isweydiinaya su'aal aad u soo laalaabatay shacabka ku soo laalaabta maxaa markasta ka dhigaya fartaagan Jubbaland iyo Puntland horta masiirka ummadda Soomaaliyeed ma laha labadaas dhinac ku xiran yahay waa ka jawaabaha masiirka ummadda Soomaaliyeed ma lahan qof la doortay oo kaliya horta waa inaan ogaano annaga waddankeenu waa waddan federaal hay'adaha federaalku waa inay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay Puntland iyo Jubbaland waxba ku qaldanaan karaan oo ra'yiyan anigu hadda inaan qabaaba dhici karta hase yeeshee annaga midnimadeena iyo Soomaalinimadeena iyo wadajirkeena iyo siyaasaddeena markasta waxay saaran tahay dawladda federaalka waxaa laga rabaa labada maamul waa run tabashooyin xilliyo kala duwan way jiraan iyo culaysyo way jiraan hase yeeshee siyaasaddu markasta waxay rabtaa negotiation isku qancin iyo inaad la timaado aragti aad dadka ku wadan karto inaad la timaado ayaa la rabaa haddii madaxweynihii marka hadda joogay uu aragti uu labada maamul ku dhaqa uu waayey ama uu baraahin cad ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigi kari waayey inay isaga ka qaldan yihiin macnaheedu ma ahan in markaas la yiraahdo maamul hebel ama waqti hebel mucaarad ahaayeen hadda maxay mucaarad u yihiin ummad kasta ama state kasta waxa waajib ku ah inuu deegaankiisa matalo inuu danaha deegaankiisa matalo waxa laga rabaa Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed sidoo kale in deegaanada sida hadda Puntland deegaanka u matasho kale
inuu matalaana laga rabaa maxaa diidaya inay matalaana dowladda federaalka la xisaabtamaan marka anigu ra'yiga ah keligood in lagu koobo la yidhaahdo iyadoo lagu cirjaynayo oo lagu riixayo inay maamul kasta kasoo horjeedaan dood taas ka wanaagsan kana xoog badan kana qurux badan in lasoo bandhigo oo ah waxyaabaha la isku hayo maamuladaas iyo hadda xukuumadaha federaalka ah ay isku qabtaan in si saxa inta looga hadlo bandhig loo sameeyo Soomaali loo bandhigo kulamo waaweyn laga qabto kadibna markaas ciddii markaas maaragtay arrintu ku ururta la isla wada arko laakiin hadda xaaladda taagan ee ah in dowladdeena federaalkeed waqtigeedii dhamaaday doorashooyin in la aado arrintaasi waa arrin u baahan in emergency looga jawaabo ummadda la isku haayo Soomaaliya aan la kala dirin sidaas waayahay wada hadaladan dhinaca kale waxaa barbar socda doorashooyin kale oo dowladdu ay rabto inay dhaqan geliso oo ay ku leedahay waa doorasho qof cod ah oo awood ayaa shacabka loo celinaya tusaale ahaan tan ka socoto GSP ay ka wado deegaanada galmudug oo kale wada hadalada dhinaca kale ay ka socdaan haddii wada hadalada isku afkarto sida aan saadaalin haddii la isku afkarto wada hadalada labada dhinac maxay ku dambeyn doontaa doorashooyinkii dowladdu ay ka qabatay maamulada ama meelaha kala duwan ay iyada maamusho horta markasta isteydyada qabaa'ilkoodii ayaa dhisanaya xildhibaankuna markasta wuxuu ku soo bixi doonaa ogolaashaha qabiilkiisa galmudug ha noqoto ama hirshabeelle hadda dhiman weli ha noqoto marka hadba sidii deegaanadaas dadka jooga ama dheergaradkoodu ay talada ama dawga u arkaan ayay maaragtay ay mari doonaan hase yeeshee maanta arrinta murugsan ee ugu weyn waa national electionka waa doorashada qaranka marka arrintaas haddii xal waara loo helo oo ay Soomaalidu si guud labada maamulo aan ku sheegay iyo golaha samata bixinta ee banaadir fadhiya oo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed u weyn yahay haddii loo helo aragti Soomaaliyeed iyo tala qaran oo wax lagu dhisi karo doorashooyinka soo socdana looga qayb gali karo iyadoo Soomaali aan la kala dirin cod midaysan madaxweyne midaysan lagu dooran karo iyadaas maaragtay mustaqbal wanaagsan iyo talo wanaagsan ah marka waxaan isleeyahay maamuladu iyaguna doorashooyin waa ka dhacayaan legitimacy-na way u baahan yihiin waxayna ku xiran tahay mucaaradku siday u arkaan siday wax u dhaceen hadday mucaaradku u arkaan in maamuladaas ay si wanaagsan wax u dhaceen waxaa dhici kartaba inay warqad soo saaraan oo ay ku taageeraan ayaa dhici karta hadday u arkaan in la boobayna waxaa dhici karta inay warqad soo saaraan ay yidhaahdaan war doorashadas ay u dhacday maahan si u qalanta deegaankaas iyo dadkaas marka intaasaan dhihi lahaa ma la dhihi karaa marka ma loo isticmaali karaa hal booli ah nirig xalaala ma dhasho waa naqan kartaa hase yeeshee mar kasta siyaasaddu waa isjiijiid kama dhama iyo daalac naasilkaas in wax laysu celceliyo marka laakiin ummadda Soomaaliyeed dadku waa inay fahmaan waxa doorashooyinka hadda madaxweynaha xilkiisu dhamaaday oo koonfur galbeed laga shaqeeyay doorashada xamar ka dhacday golaha deegaanka taa hadda galmudug laga ifafaaladeeda iyo kaambeynkeeda ka ma ahan wax oo maaragtay waafaqsan shuruucda caalamiga ee doorashooyinka wax waafaqsanna maaha nidaamka xisbiyada adduunka ka jira ee doorashooyinka adduunka ka jirana ma ahan waa nidaam adiga ragga kooxda ee abaabulan ee maaragtay maanta xukunkii jooga waqtigooduna dhamaaday ay samaysteen oo ay sameeyeen waay marka waxaan isleenahay shicibku ugu yaraan national electionka aan xooga saaro si looga badbaadiyo maaragtay dhibaatadooda iyo hagardaamadii hadda inta ay sameeyeen iyo dhibaatooyinkii ay ummadda ugu geysteen nidaamyadii doorasho oo beenta ahaa ee hadda lasoo maray axmed maxaa lagu tilmaami karaa qof lasii ogyahay oo ticket lasii siinayo oo la leeyahay meel hebelaa madaxweyne ka noqonayo doorasho noocee ayaa lagu tilmaami karaa waa wax lala yaabo hadda tusaale xisbiyada qaar guddoomiyaashooda oo ay leeyihiin way nala tartamayaan tusaale anoon magac sheegin xisbiyada qaar oo hadda galmudug ka tartamaya madaxdooda waa la wacay odaga madaxweynaha waqtigiisu dhamaadaa la fariistay isa sharaxuu dhahay weligaa ma maqashay guddoomiye tartami rab oo xisbi oo la leeyahay annagu muxaafadaanahay mucaarad noqo ee ila tartan inta suuqa laga waco marka waxaani doorasho ma ahan waa wax la wato oo rag gaara ay wataan oo dantooda iyo siyaasad guracan oo iyagu ay doonayaan inay ku gaaraan laakiin aan qarankii ummadnimada aan sharaf u ahayn danna u ahayn waaye waxaanu ma ahan wax dowladnimo iyo nidaam sal u ah maaha qayb kale oo waraysigeena gudageli doona oo mucaaradada aan uga hadli doono maxaa xal ayaa is leedahay ugu dambeyn xalku waxa waaye in la wada hadlo wada hadalku miro dhal noqdo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday xasan sheekh maxamuud madaxweynuhu 2 jeer lagu doortay waqtigaagi waa dhamaaday hadda Soomaaliya oo dhan hadda ma xukuntid reer Muqdisho aad xukuntaa reer Muqdishona maanta madaxweyne Shariif Sheekh Axmed iyo wasiir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ra'iisul wasaare Khayre xildhibaan maaragtay Cabdiqaadir Cusuble iyo dadka la midka ah oo ka soo horjeeda oo qaarkood guddoomiyaal gobol soo mareen dad badan oo aragtida siyaasadda ka soo horjeeda reer Muqdisho u badan
dadkaas intaad xoogto xukunaad xoogta muqdisho kuma haysanaysa waxaa waaye inaad wada hadalka aqbasho talada ummadnimada aqbasho soomaalinimada aqbasho soomaalina sidii lagu wada hayn lahaa falowgeed iyo taladeed aad la timaado miiska heshiis dhaba oo aan laalaab iyo jiidmaal ku jirinna aad fagaaraha la timaado marka intaasaan dhihi lahaa waayahay dhinaca kale soomaaliya mar kasta 4 sanaba mucaarad iyo maxaafid ayaa loo kala baxaa qolo ayaa banaanka taagan oo qaylinaysa aragtidaada yaa mucaarad ah horta yaa mucaaradsa noqon kara mucaarad waxaa ah qofkii mabaadii leh xisbi ha noqdo ama shaksi ha noqdo qofkii mabaadii leh waxaan uga jeedaa tusaale anigu hadda waxaan ku jiray dadkii ka soo horjeedi jiray farmaajo haddana waxaan ka mid ahay dadka xasan ka soo horjeeda farmaajo maxaan ku dhaliilay tusaale farmaajo waxaan ku dhaliilay habmaamulkii sidii uu ciidamada soomaalida u maamulay gaar ahaan ciidamada eritrea loo diray waxaan ku mucaaraday sidii uu la dhaqmi jiray waxaan ku mucaaraday amni daradii muqdisho iyo dadkii reer muqdisho dhibaatadii ku dhacday xilligiisii waxaan ku mucaaraday xurriyad la-aantii waxaan ku mucaaraday weeraradii uu siyaasiyiinta ku qaadi jiray iyo dhibaatadii uu sameeyey waxaan ku mucaaraday waxyaabo badan oo ilaa iyo 30 iyo dhowr gaarayo waa qoran yihiin aniga meel igu qoran yihiin ayaan ku mucaaraday hadda xasan maxaan ku mucaarad ugu ahay haddana waxaan mucaarad ugu ahay kow xasan siduu dhulka u maareeyey arrintii dhulkii danta guud siduu u maareeyey mucaaradadeeda asalkeeda taasuu ka bilowday midda labaad aan ku mucaarada waxay ahayd sidii loola dhaqmay dadkii hala kiciyaba dadkii masaakiinta ahaa ee marasta ahaa ee Soomaaliyeed oo qaarkood hooyooyin ay ku jiraan oo wiilashoodii ku dhamaadeen difaaca dalka oo qaarkood ay ku jiraan gabdho asaay saarno agoon korsada ay ku jiraan dadkaas siduu ula dhaqmay markaan arkay ayaan waxaan go'aansaday haddana inaan mucaaradadeedii sii wado inaan mucaaradan ba ahaa markaasba inaan mucaaradadeedii aan wadi jiray ay xaq tahay inaan maantana sii wado oo aan maaragtay marka qof iyo xisbiba ama ururba waa la mid haddii qofku damiirkiisu nool yahay soomaalinimadiisuna noosha islaamnimadiisuna noosha arkaya qof Soomaaliya la dulminaya laguna dulminaya in gurigiisii hooygiisii laga qaadayo carruurta ku hooyanaysa lana siinaya dad Dubai iyo Nairobi wada degan ilmahoodina dhoofsaday maaragtay hanti fara badanna heli kara dhulkii la siinaya marka ma garan karo qof reer Muqdisho ama Soomaaliya inuu gadaal isu sii dhigo oo maaragtay arrintaas waxaan kaloo ku mucaaraday qaabku hadda mucaaradka u wajahay xuriyatul qowlku siduu u diiday siduu dadka u xirxirtay sida gabadha maaragtay loo xukumay maaragtay hadda masaakiinta bajaajka wadi Saacdi bajaaj la yiraahdo maaragtay iyadoo umula iyo wixii la mid marka qofka anagu markasta anigu marka ra'yigeyga ka Axmed ahaan damiirkeyga ima siin karo qofka hadduu ugu hooyo aabayahay xataa inaan ku sabood gareeyo qalad inaan ku sabood gareeyo ma samayn kara taas marka qof kastoo Soomaaliya oo damiirkiisu nool yahay culimo ha ahaado hooyo ha ahaado wiil dhalinyaro ha ahaado saxafi ha ahaado indheer garad ha ahaado waxaa waajib ku ah inuu dareenkiisa umadnimo iyo dareenkiisa walaalnimo uusan maaragtay uga faa'iideeyo dadkiisa dhiban ayaa maaragtay ayaa waajib ku ah marka intaasaan dhihi lahaa mucaaradadeena Soomaaliya ku sugan gaar ahaan magaalada Muqdisho ma la dhihi karaa waxay mucaarad u yihiin in ay kursi uun ku gaaraan iyadoo loo tusaale qaadanayo tan xasan sheekh maxamuud oo kale maya lama dhihi karo sababta waxay tahay tusaale hadda mucaarad golaha samata bixinta oo kale xasan maalin kastuu ula taagan yahay xil iyo xoolaba ma rabaan xil hadday rabaan isaga ka qaada lahayn marka ma soconayso arrintan waxaa la isku hayaa mabda Soomaaliyeed umadnimada sida la isugu hay lahaa geographically Soomaaliya sida loo badbaadi lahaa ummad ahaan sida loo badbaadin lahaa siyaasad ahaan sida loo badbaadi lahaa election ahaan fair ahaan sida loo badbaadin lahaa Soomaalida inay doorashay maaragtay ku qanacsan tahay gasho waxa la isku hayo waa arrintaas ma xukun iyo xoolo ninku hadda waa ogol yahay marka waa liishin karaan marka arrintaas sida ummaddu waa inay sidaa u fahanto waxa la isku hayo waxa waa Soomaaliya halkay u guure sidee u guure sidaas la isku haya ma ahan maaragtay xil qaybsi wax kasta ninka uu ogol yahay iyagan doonay dood kale banaanka taala jirto oo ah mucaaradka hadda jira Muqdisho fadhigoodu yahay gaar ahaan Jazeera markii uu xasan sheekh uu ka mid ahaa awood xoogan ay lahaayeen hadda markii xasan filada aaday awoodooda si un bay wax ka yihiin ayaa lagu doodaa arrintaas may arrintaas waa been cad waaye horta mucaaradku weli awood maba muujinba mucaaradku arrinta ay sameeyeen maalin dhaweyd waxay ahayd banaanbaxyo iyo ku talagalkaas ay ahayd laakiin weli ilaahay naguma geeyo military le haddii la tago wax dhici doona anaga ma ogin marka testiga hadda dadku iska sheegayaan kuma dhisna arrin daqiiqa oo la baaray oo xogogaalnimo ku dhisan ma ahan inay mucaaradka hore ka xoog badnaayeen arrin saxa maaha arrintaas anigu ra'yigeyga
mucaaradkan waxaan aaminsanahay mucaaradka hore inay ka xoog badan yihiin hase yeeshee waxa horta loo turaayo waa dalka dadku waa inay ogaadaan umadnimada iyo dowladnimada iyo wax yaroo maanta inoo dhaqaaqayo dowladnimadeena inay badbaado waa waxa la ilaalinayo xoog iyo awood cid hadda madaxweynuhu xilkiisu dhammaaday uu ka xoog badan yahana ma jirto marka dadka muqdisho waxay qaybsameen 1991 November waatii dagaalka 4 bilood ma kala xoog badna dadku marka inay heerkaas gaaraan oo la kala qaybsamo oo la diriro haddii la diriro dadku waa qaybsamaya marka madaxweynahan waxaa u wanaagsan oo tala Soomaalinimo oo tala walaalnimo ah waliba in wada hadalka socdaahi uu natiijo dhalo haddii wada hadalka laga quusto oo ay noqoto aniga magaaladii haysta anaa dekadii haysta anaa airportkii haysta anaa cashuurtii bariga qaadanaya aduguna madaxweyne hore iyo wasiirro hore waxba qaadan ma kartaan waana magaalada anaa leh adiguna ma lihidiin arrintaas waxaa ka dhalan doonta isku dhac iyo qallaasa ka dhalan doona waana arrin aad khatar u ah waa marka waxaan isleeyahay arrintaas in ma aragtay sidii xal waara looga gaari lahaa wada hadalku uu bisleeyo ilaahay idinkiis waaye maxay tahay fariinta ugu dambeysa oo aad dhinacyada aad u dirayso barnaamijkan xirayna fariintaan u diraa ka aqoon ahaan waxa waaye horta ninka xilku ka dhamaaday labada joor madaxweynaha noqdo federaalkan ku hormara madaxweynuhu fariintan ku diray waxa waaye dalka maanta laba joor aad xukuntay sumcadii sumcad darraba waxay ku naqato ha uga tegin civil war xamar adoo xamar civil war geliya ha uga tegin nimanka walaalahaya ee xukunka kugu haysta ma rabaan xukun bis waxay rabaan inay Soomaali isku hayaan Soomaali waxay ku qanacsan tahay ay isku doortaan intaasaan adiga ku dheelahay tanaasul oo ka tag hawadaada iyo dantaada gaarka ah una tanaasul umadnimada iyo Soomaalinimada qolada mucaaradka waxaan leeyahay wada hadalka si dhab ah u gala wixii aad ka tanaasuli kartaan ka tanaasula si ummadda la isugu haayo umadnimada loo ilaaliyo dowladnimada loo ilaaliyo maaragtay gar macno leh oo adagna meesha geeya oo waddankana dhisaysa umadnimadana u roon waana mahadsantiin waxa uu ahaa axmed caraaye cumar calasow axmed sahal aqoon-yahan iyo sharyaqaan toddobaadkan marti uu ahaa barnaamijka daljir ee ka baxa warbaahinta himilo tan iyo kulanto dambe sidaas inoo geliyo